kulan ay isugu yimaadeen golaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle ayaa maanta waxaa lagu dhaariyay golaha wasiirada, wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dawliyaasha oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaasi oo ay ansixiyeen golaha baarlamaanka ee Hirshabelle. wasiirada wasiir ku-xigeenada maanta la ansixiyay ayaa waxaa lagu hanweeyahay in dhawaanba ay ka howlgalaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. ugu horeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa halkaasi waxa uu ka soo jeediyay khudbad dheer taasi oo kaga hadlayay ahmiyadda golaha wasiirada oo uu soo magacaabay iyo waliba waxqabadka maamulka Hirshabelle. inta aan guda gelin barnaamijka xukuumadda waxaan jeclahay inaan ugu horeyntii idin soo gudbiyo ammaan iyo bogaadin ballaaran oo aad ku mutaysateen howlkarnimadii iyo xilkasnimadii aad u gudateen waajibaadkiinii dastuuriga ahaa kuna doorateen xubnihii lagu matali lahaa aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. walow ay suurtagalnimadeeda dad badan shaki weyn ka qabeen, haddana annagoo jirna maalmaya ayaan u dhaqaaqnay kuna guulaysanay inaan deegaankeenna ku dooranno xildhibaano iyo senataro ay wadartoodu tahay 46 kuwa oo shacabka Hirshabelle wakiil uga ahaanaya dowladda federaalka Soomaaliya 4 sano ee soo socota. waxaa maan mudan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ciidamada booliska Soomaaliya, hay'adda NISA iyo ciidamada AMISOM oo dhammaantood ka qayb qaatay kuna guulaystay sugitaanka amniga guud ahaan magaalada Jowhar muddadii ay doorashooyinku socdeen. sidoo kalena waxaa xusid gaar ah mudan howlkarnimadii ay ku guteen waajibaadkoodii guddiyadii kala duwanaa ee hirgeliyay doorashooyinkii dadbanaa ee SID iyo FID iyo weliba guddigii xallinta khilaafaadka. dowlad goboleedka Hirshabelle waxay kaalinta koowaad ka gashay Soomaaliya xagga ilaalinta xuquuqaha ay haweenka ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya. waxaan suurtagelinay inay haweenka Hirshabelle helaan qoondadii gabdhaha baarlamaanka ee ahayd 30%. kadib khudbadii dheerayd ee madaxweynuhu waxaa halkaasi lagu dhaariyay golaha wasiirada, wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dawliyaasha oo uu soo magacaabay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay in aan maamulka dowlad goboleedka Hirshabelle si cadaalad ah, midnimo ah, wadaniyadnimo ah aan ku hogaami doono, dhowri doono dastuurka qaranka iyo midka Hirshabelle iyo shareecada islaamku inaan ku dhaqmi doono, waana ka leexanaynin mabaadi'da barnaamijka shaqada ee dowladda ay leedahay si cadaalad ah inaan ku hogaami doono aan ku dhaarana. dhaarin kadib gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu la dardaarmay golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaasi oo kula dardaarmay in si wanaagsan ay u gutaan waajibaadka qaran ee ay ximbaarsan yihiin. xisaabtanka aqalka sare anaga dooran waa xisaabtamayna, marka mar haddii la xisaabtamayo waa inaad ku fikirtaa xilka la dhiibay inuu yahay xil xisaabtan inuu yahay. madaxweynaha la xisaabtamayo, baarlamaankana wasiirkii shaqadiisa gudan waayo waa la keenaa waa la xisaabtamaa, kadibna waa ogaa la xisaabtan waxay ka dambeeyay waa fahmi kartay. baarlamaanka marka waxaan leeyahay inta hartay waa wasiir noqonin idinkuna markii aad wasiir noqonayseen aqoon-yahanada kala soo haray sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudlaawe ayaa madasha waxa uu kula dardaarmay golaha wasiirada, wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dawliyaashu maanta lagu dhaariyay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. bacda salaam waxaan rabaa inaan iraahdo hambaliyo wasiirada cusub inaan iraahdo ilaahay idin fududeeyo mas'uuliyad culus ama aragtay alla idin magacaabay insha Allah haddii la raali ka noqdo annaguna waan idinla shaqaynaynaa, mas'uuliyadda aad qaadeenna waa mid naga wada dhaxayso, ilaahay noo fududeeyaan lana insha Allah haddii la raali ka noqdo. Cabdi Ahmed Maclow, Aziz Azaki, telefishinka caalamiga ee Bulsho, Jowhar.